taas oo ay culimadu sheegeen in ay waayeen dariiqay soo maraan ayaa haddana aysan ra'yigoodu ama damiirkoodu siinin in ay galaan meeshii oo ay ka hadlaan oo ay dhahaan waxani waa xaaraan iyo waxaad ku dhaqbaysiinaya waxaad samaynaysiin iska soo xira waxa kan oo kasoo dhaqaaqa laga yaabo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo meeshaas faaxishadaas ku jiray in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku soo hadayn lahaa oo ay kaga soo noqon lahaayeen kagana soo bixi lahaayeen balse waxaad moodaa culimada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in ay ka gaabiyaan maxaa la yiraahdaa waajibaadkii saarnaa ma arkaysid dhibaatada Soomaaliya ka jirta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha qaaliga aan ku kulanay channelkeena Shay Sharaf وإذا السلامي وهذه اللي هي سود دوادا ويلكم قاعد مفرن قلب فرنك سود دوادا ولا لهيك قالقة وحان ربما ما تطولينا كهادلو موضوع كسابسن إن فنانة وين كين جامع هانتي وفنانة صوماليات فنانة صومالي انتو هذا بدن اي تعيش هاي ويان بلسه وفنانة انتو هذا بدن اسقاوسة وكه شيء مريها ديقتو اسقاوسة فنانة انتو ايوه markoodii horeba dad wada qaawan ahaa ayaa haydana iyadu way ka daran tahay oo waxay soo xirataa mariya aad mubaashir u ah oo mariya wada dildilaacsan oo boodiyaheedu dhan muuqan yihiin oo jirkeeda inta badan muuqanayo waxyaabo caynkaas oo kale ayay soo xirataa dhalinyaraduna dee faaxishada dunida ka jirta ayay ka helaan oo wax kaleeto kama helaan haba yaraatee waxay ka helaan dumarka sidaas oo kaleeto u qaqaawan oo sidaas oo kaleeto mariyaha u soo dhigtay ay aad uga helaan showga ay qabanayso meel kasta ha ku qabatee waxaa imaada dad ama shacab aan imaanin fanaaninta kaleeto sadadka qafiifka ah ku soo heesa dadaan imaanin ayaa imaada iyada kin jamac showgeeda taasoo haddana ay soo qaataan mariyihii ay qabtay iyo dharkii qaqawnaa oo ay qabtay ayaga oo ka dhigaya in ay mariyo fashion yihiin ama yihiin يعني ay ku faraxsan yihiin iyagu dabcan waxa uu shaytaan baa u qorxinay balse way ku faraxsan yihiin hadda ayaa waxa ka dhacday in ay show ku qabato magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland showga ay ku qabatay ayaa waxa lagu leeyahay Hotel Balance ay ku qabatay showgaas waxa isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo shacabkii reer Hargeysa ahaa iyo shacab ka yimid gobolada kale ayaa isugu yimid hotelkaas showga ay kinja meesha ku qabanaysay meeshaas oo waxa lagu leeyahay hotelkii iyo aagiisii iyo agagaarkiisii xaafadihii u dhawaa iyo laamiyadii iyo sharciyadii u dhawaaba ay xireen baabuuradii ay wateen shacab weynihii ka soo qayb galay showgeeda halkaas oo showgii habeenkii ay ku qabsadeen taas oo isugu yimaadeen dad fara badan oo shacab ah ku nool gobolada Somaliland iyo caasimadda Hargeysa culimada ku nool Somaliland oo ah culimo aad iyo aad u fara badan oo wada naqaano sheekh ka hadlaya ama sheekh ka hadlay habeeraatay ma jirto halkaas iyo faaxishada halkaas ka dhacday hal sheekh ayaa ka hadlay sheekhaas oo dabcan yiraahday waxaan waa faaxisho waa in culimadu ka hadasho waa in la xiro wasiirka diinta iyo waqafta warqad ayuu soo diray warqadaas oo ah in showgaas la joojiyo gabi ahaanba oo albaabada la isugu laabo markii la yimid oo damciin albaabada la isugu laabo oo la joojiyo ayaa haddana mid kaleeto oo isagana aan wasiirka diinta qafta ahayn ayaa intuu ka soo dabaxay warqad kaleeto oo dheer soo qoray ayuu wuxuu fasaxay in showga meesha lagu qaban doono uu sii soconayo showgaas oo aan showgaas la joojinaynin showgaasna wax albaabada la isugu laabay habeeratee aanu ka jirin oo sida uu ku sii socdo showgaas iyo faaxishada meesha ka socoto okay ha ahaato kolley wasiirkaasi isagu waajibaadkii uu lahaa wuu gutay wasiirka diinta oo qaafta waajibkiisa waa gutay wuuna joojiyay showgii iyo faaxishadii meesha ka socotay balse dad isaga ka sarsareeyo ayaa go'aan waxay ku gaareen in uu sii socdo faaxishada meesha ka socoto halkaas oo wadadii markii ay xirteen shacabkii ka soo qayb galay ama dhalinyaradii ka soo qayb gashay showgeeda oo shayga meesha ku qabanaysay ayaa waxaa jiray culimo fara badan oo ka soo noqotay meel ay diin ku fidinayeen ama diin ku faafinayeen ama wacdi ay ku hayeen ayay ka soo noqdeen ayagoo u soo noqday una soo socday guryihii ayagu ay lahaayeen oo deganayeen marinkooduna wuxuu ahaa show hotelkii showga lagu qabanayay ee kin jamac joogtay oo shacab weynuhu isugu yimid ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxa kulan siiyay culimadii soo noqotay iyo dhalinyaradii oo meesha faaxishada ah ku jirta oo wixii ay waraaqanayaan culimadii oo ka soo noqotay meesha diinta ku faafinayeen iyo kuwaan dhalinyarada shaydaan qaatay oo meesha faaxisho ku wato ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iskulan siiyay
hay culimadu waxay damcday inay soo gudbaan oo kasoo tagaan meesha tan kuma aysan leexanin mana aysan go'aansan inta ku leexdaan in ay ka wacdiyaan faaxishadan ay meesha ay kula jiraan ama faaxishadan ay walaaqanayaan culimadii kaliya waxay sheegeen in ay waayeen dariiq ay kasoo gudbaan maxaa yeelay dariiqi waxaa xiray dhalinyaradii ama shacabkii reer Somaliland kasoo qayb galay showgii ay qabanaysay fanaanada Ken Jaamac taas oo ay culimadu sheegeen in ay waayeen dariiq ay soo maraan ayaa haddana aysan ra'yigoodu ama damiirkoodu siinin in ay galaan meeshii oo ay ka hadlaan oo ay dhahaan waxani waa xaraan iyo waxaad ku dhaqbaysiinaya waxa sameynaysiin iska soo xira waxa kan oo kasoo dhaqaaqa laga yaabo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo meeshaas faaxishadaas ku jiray in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku soo hadeyn lahaa oo ay kaga soo noqon lahaayeen kaga soo bixi lahaayeen balse waxaad moodaa culimada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in ay ka gaabiyaan maxaa la yiraahdaa waajibaadkii saarnaa ma arkaysid dhibaatada Soomaaliya ka jirta gobol kasta ha ahaato magaalo kasta ha ahaato meel kasta ha ahaato dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirta oo ah dhibaatooyin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga xarimay oo dhalinyaradeennu iyo shacabkeennu iyo waayeelkeennuba ay ku dhaqmayaan hadday noqoto faaxisho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu xarimay oo lagu sameeynayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya hadday noqoto dulmi lagu sameeynayo dadka masaakiinta oo laga awood badan yahay ma arkaysid sheekh ka hadlaya oo dhahaya sidan aad sameynaysiin waa xaraan ee iska daaya oo wacdi maalin walba halkaas la soo fadhinayo ma arkaysid sheekh ka reebay xumaanta shacabkan ama dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ku dhaqmaya xumaanta ay ku dhaqmayaan sheekh ka hadlaya ama ka reebay ma arkaysid waxaa moodaa waayadan dambe in culimada Soomaaliyeed ay ka gaabiyeen waxqabadkoodii ama waajibaadkii saarnaa iyo waxqabadkoodii waxaa moodaa in ay ka gaabiyeen waxaa ku yaala gobolada Soomaaliya hoteelo fara badan oo faaxishaad baa lagu sameeyaa la leeyahay oo dadku ay wada og yihiin haddana sheekh inta taga ka wacdinaya ama ka hadlaya ama waa xaraan waxaad sameynaysiin orar karaa ma jiro garan maya anigu waxa ay yani sheekh ka yihiin iyo waxa ay diinta ka xambaarsan yihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waajib ku saaray markaad diinta baratid markaad sheekh tahay dadka wacdinayo diinta soo baratay Ilaahay wuxuu ku saaray waajib in aad dadkaagan xumaanta sameynaya xumaanta ka reebtid dadkaagan islaamka ay Soomaalida kula xumaanta walaaqanaya maadaama aad cilmi ku dhaantid in aad wacdisid hadii laga qaato haddaan laga qaadana lagama qaadan laakiin waxaad sameyn kartaa in aad u wacdisid oo aad wacdigaas aad gaarsiisid ay waajib ku saaran balse xumaana u jeedid oo dadkii shacabka ay walaaqanayaan inaadan ka hadlin yani waa shay yani aad iyo aad loola yaabo adiga oo xambaarsan diinta islaamka oo wacdi iyo waano inta u fidin kara laga yaabay 30 qof meeshan hadii ay ku jirto oo 30 qof ay faaxisho walaaqanayso waxa laga yaabaa 20 inay ku gacan sayraan 10na ay ku soo raacaan taas faa'iido weyn ayaa qabtaa hase ku danteeda waxa amar lagu bixiyay in showgii la joojiyo oo albaabada loo laabo oo wasiirka diinta iyo waqafta Somaliland ayaa warqad soo saaray in showgaas la joojiyo albaabadana loo laabo maadaama showgaas uusan ahayn show munaasib maadaama ay tahay meesha meel faaxisho lagu wado ha soo daayo oo warqada ha keeno oo ha amro ha fasaxo balse warqad asaga ka amar weyn oo dadka sarsareeya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarkiisa ayaa weyne ayaa warqad kale soo qoray warqadaas oo ay leeyihiin ama ku cadeynayaan ama ku dhawaaqayaan in showgaas aan la taaban karin la xiri karin irdada loo laabi karin cid wax ka oran karta aysan jirin showgana uu bartiisa ka sii socon karo taas waxay ku noqotay niyad jab dadkii ku niyad weynaa ama ku han weynaa in fusqan meesha ka socdo laga joojiyo run ahaantii waa waxyaabo la yaabo waan waxyaabo cajiib maadaama uu wasiirkaasi soo saaray amarkaas in lagu dhaqaaqayay ahayd in albaabada loo xiraayay ahayd ma aysan ahayn in faraha laga qaado iyo in la yiraahdo showga kani ha sii socdo yani waa niyad jab shacabka Somaliland iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba ku soo wajahan ama ku imaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqayna wada fahansiiyaan leeyahay culimadeennana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo duwo in ay dadka shacabkooda qaldamay qaladka ku socda ku waaniya in Ilaahay ka dhigo culimatan waajibaadka saaran ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala korkooda uu saaray kuwi gutana Allah ka dhigo waa culimadeeni ma aflagaadana gama mudna qof culimada caaya ama sheekh caayna ma wanaagsana
oo xumaan nagama mudna balse waxaan oran karnaa waxay ka gaabiyeen boqolkiiba 70 ayaan oran karaa waxay ka gaabiyeen waajibaadkii saarnaa culimada Soomaaliyeed aad iyo aad ay u gaabiyeen baan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii dadka xumaanta ka reeba ha ka dhigo ayaan oran karaa culimadeena insha Allah khayrna Allah siiyo walaashii Sheekh Sharaf waxaan idin la wadaagayay macluumaadkan ama qisadatan ku saabsan fanaanadatan Kid Jaamac walaalahayga qaaliga ah inta aan ku kulmi doono fiidiyowga xigi doona waxaan idin leeyahay anigoo Sheekh Sharaf waxaa idinkaga tagayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh